السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhamaan akhyaarta inta channelka xiran inta cusub dhamaantiin ku soo dhawaada muuqaalkan waa aniga ah Yaxya Maxamed Axmed. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa Google Forms saddex feature oo ku saabsan. Hore ayaan usoo sharaxnay Google Forms iyo sida loo isticmaalo iyo faa'iidooyinka ay ku qaban kartaba. Haddii aanad hore u daawan labada muuqaal xagan ka daawo, haddii aad hore u soo daawatay ama aad hore u isticmaali jirtay muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa saddex feature oo aad muhiim ah. Ka koobaad oo ah response validation waxa loo yaqaan oo ah jawaabta in aad xaqiijiso nooca aad rabto inay tahay. Talabaad logical branching inaad faracyo caqliyeysan u sameyso, iyo form embedding waxa loo yaqaan oo ah inaad formkaaga aad website ama aad meel kale ku isticmaasho. Haddaba ku soo dhawaada muuqaalkan daawasho wacan. qodobka koobaad aan kaga hadli doono muuqaalka waxa loo yaqaano response validation. Response validation saa hore usoo sheegay waxa waaye inaad jawaabta xaqiijiso. Marmarka qaar waxaa dhacda inaad u baahan tahay oo kale qofka magaciisa inaad ogaato number in la geliyana aad ka cabsanayso ama waxyaabo calaamado kale waxaad diidaysaa waxaan xarfaha ahayn oo kale in la geliyo, ama مثلا oo kale number ayaad rabtaa qaab gaar ayaad u rabtaa waxaan isaga ahayn in la geliyo ma rabtid. waxyaabahaas oo dhan sidee u sameyn kartaa ayaa response validation-ka aan ku sheegaynaa. Marka koobaad waxaa u baahan tahay inaad gasho Google Drive-kaaga. Hadda waxaan galaynaa formka aan hore u diyaariyey. formkan laba su'aalood ayaa ku jirta. Haddii ayna ka su'aalo aadan hore u haynin aad ku practice garaysana su'aasha xaggaa baa lagaga soo daraa. Su'aasha koobaad waxay sheegaysaa magaca. su'aasha koobaad waa magaca. waxaan rabnaa hadda su'aashan oo kale inaan ku soo darno response validation. waxaan sameynaynaa meesha calaamadda required agteeda saddexda dhibcood baan soo furayaa. response validation ayaan leh. kadib waxay soo baxaysaa daaqada ama menuga. waxaan ka dooranayaa waxa aan rabo in aan ku tijaabiyo qofka ama aan rabo. مثلا number haddaad geliso qofka waxaan number ahayn ma geli karo. text sidoo kale waa qoraal. length haddaad rabto dherarka waxa uu gelinayo kale مثلا imise xaraf oo kale inuu qoraa qofka rabta ugu yaraan. regular expression waa haddii aad rabto program ama wax gaara qaab nooc gaara. مثلا haddaan iraano text qofka wax walba ayuu gelin karaa, numberada xataa ay ku jiraan. waxaan rabnaa مثلا xarfaha A to Z kaliya inuu geliyo. waxaan sameynaynaa regular expression ku dhufanaa. regular expression marka ku dhufto button ayaa soo baxaya. button waa qaabkee wax u rabtaa. مثلا loo kale hadda waxaan sameynaynaa regular expression soo sameyno. waxaan sameynaynaa calaamadda aan furaya bracketka. waxaan leeyahay xarfaha la gelinayo waa un A ilaa Z inay noqdaan oo yar yar ah ama waaweyn A to Z ayaan leeyahay. inta marka geliyo waxaan leeyahay kadib qofkii inta aan gelinna magaca sax ah u soo baxdo. magaca sax ah u soo baxdo. waxaan arkaysaa hadda haddaan tijaabino oo aan raano view waxaan arkaysaa qofkii hadda number geliyaa formka uu ka diidaya. Soomaaliyeed haddii aan magac gelino مثلا oo kale xarfo haddaan gelino wuu yeelayaa. laakiin waxaan AZ ahayn ama xarfo waaweyn iyo xarfo yar yar ba ahayn kaama yeelaya. calaamad kaasoo kale aan gelinaynaa ma ka yeelaya. response validation-ka faa'iidadiisa intaas ay leedahay. wuxuuna usoo qorayaa weliba message-ka u dirto ah magaca sax. haddaba ka hadduu magaca iyo textiga yahay waxaan sameyn karnaa numberkana validation ayaan u sameyn karnaa. numberka validationkiisa waxaan sameynaa isla sidoo kale response ayaa leedahay response validation. kadib meesha numberkii ku qoran tahay ayaa soo furaysaa. number waa dooran kartaa kadibna daaqada ayaa waxaa ka dooranaysaa is number taa ay ku qoran tahay. wuxuu eegayaa qofka waxa uu geliyo hadduu number yahay uu daynaya, haddii uuna number ahayna wuxuu leeyahay geli. xagga ayaa ugu qoraysaa numberka sax oo kale. haddii aan مثلا rabno in aan kasii duwan annaga aan hagaajino waxaan leenahay regular expression oo kale. buttonka ayaa waxaan ku qoranaa مثلا oo kale numberada iminka xamar laga isticmaalo oo kale. haddii aan rabo inaan geliyo oo kale waxaan leeyahay qofka waa inuu eber ku bilaabaa furaha labaad haddana waa inuu geliyaa 6. waxaan leeyahay intaa haddana waxaan leeyahay furaha saddexaad muqdisho مثلا 1 inuu geliyaa. waan leeyahay intaa marka ay raado saddexdan number hore qofka waxaan inta ahayn ma geli karo. kadib waxaan leeyahay calaamadda D iyo numberada kale hadaan soo gelinayaa. waxaan leeyahay
haraaciyo inta 8 number ay kala haraaciyo ama 7 ka dhigto 7 number waa isla iyo D7 aan leh inta markaan geliyo qaladka marka qofka inta uu gali waayeen waxaan leenahay numberka iska sax madhan marka sidaan raano mesela hada tijaabino telephone numberka tagayna waxaan gelinaa mesela numberka iska geliya wuxuu ku leeyahay numberka iska sax qalad waay مثلا هدو قف قلي إبر لكن نمبر كحجة وتضبط كديجو وحورة بهجلي هدانا نمبر كصحي وله لكن هدي وفرها صحو وإبر لح حل كديجو إبر لحل كديجو كدبنا والنمبر هذي كلا جليو وحلها هي واصحنته مركا إلى حد فرها سوق وجه جري واسمين كرتا وحكي عن إن أدو راعسو قف كان نمبر كسح ماشي قرنتها هي نوع قربته nooca aad xurubto inaad raaciso ayaa fiican feature-ka labaad ee aan rabay inaan kaga hadlo muuqaalkan waa feature-ka loo yaqaano logical branching wuxuu faa'iido leeyahay marka aad rabto qofka inaad su'aal weydiiso su'aasha jawaabta uu ka jawaabay adoo ku dul dhisayna aad qayb su'aalaha u siiso مثلا qofka waxaad weydiinaysaa hadda su'aashan anaga maxalaraada weydii doono kale tusaalaha waxay sameynaysaa su'aasha koobaad waxaan niri مثلا xagee ku nooshahay xagee ku nooshahay markaan niri qofka waxaan siinaa laba khiyaar labada option waxa waaye waa Muqdisho iyo Hargeysa kale waxaan rabaa qofka hadii uu Muqdisho doorto in aan su'aalo gaar ah weydiiyo مثلا xaafadaha Muqdisho ku saabsan Hargeysa xaafadaha Hargeysa kale su'aal ku saabsan sidee u sameyn karnaa si fudud waxaan sameynaa horta su'aasha ka doorashada ah waa taqaanaan horan ku soo sharaxnay fiidiyoyada hore sida su'aasha multiple ka loo sameeyo marka inta sameeyno ayaa xagga soo furana xagga marka soo furna ayaa leenahay go to section based on answer su'aasha jawaab adoo ku dul saay jawaabta waxa tagtaa qayb kale hadda waxa arkaysaa qayb cusub inaan sameeyo oo ay ku qoran tahay Muqdisho iyo qayb kale oo ay ku qoran tahay Hargeysa qaybaha si loo sameeyo waa buttonka u hooseeya ay ku dhufanaysaa add section cusub ay kugu soo daraya mesela kal xagga section ay hadda noo soo gali qaybta sida ayaa loo soo galiyaa waan iska masaxana remove section waxaan sameeynay su'aasha intaan ku dhufanay waxaan ku dhufanaa markan inta soo furno go to section based on answer aan raano ayaan waxaan tagaynaa su'aasha waxa noo soo baxaysa calaamada oo ah continue to next section ma ta ku xigtaa rabtaa waxaan dooranaa marka section-ka aran مثلا section-ka Muqdisho maadaama ay Muqdisho u dooray tanna Hargeysa u dooray hadana waa si farac kala u sii sameeyay oo waxaan iri xaafadeen kamid ahayn xaafadaha Muqdisho waxaan weydiiyay qofkan 5 su'aalood shantan su'aalood afar kamid ah waa xaafada Muqdisho ku yaala mid kamidana waa xaafada Hargeysa ku taala marka haduu xaafada calaamadaha garto qofkaas waxaan leenahay waxa tahay Muqdishaawi dhab ah oo waxaan u diranaa section-ka kale Muqdishaawi la yiraahdo hadii uu qofka khaldana waxaan u diranaa section-ka kale ugu dambeeya ma kala garanaysid xaafadaha magaalada sidoo kale Hargeysana waxaan sameeynay waxaan weydiinay xaafadeen kamid ah xaafadaha Hargeysa waxaan sheegay afar xaafadood oo Hargeysa ku yaala iyo xaafadan ku oolen kadib xaafada saxda ah waxaan niri Hargeysaawi tag xaafada haduu garto waa bari oo yiraahdo waa bari kuma taalo Hargeysaawi sax hataan leenaa hadii uu garan waayana kuwa kale oo dhan waxaan leenaa ma kala garanaysid xaafada section-kaas gee hada waxa arkaysaa xagan in labada qayboodba hadii ay su'aasha gartaan mid kasta oo kamid ah uu tagayo magaaladiisa oo la leeyahay Muqdisho ama Hargeysa hadii uu labada garan waayana waxaan sameynaa labadoodaba waxaan u diranaa hal section oo ah magaalada ku nooshahay ma kala garanaysid kaba soo qaad hadda aan tusaalahan maxaa la tijaabino qaybtan magaca iyo aan iska saaraya delete maadaama aan tijaabinay xagee ku nooshahay hormarnayna waxaan leenahay preview qofkan wuxuu ku weydiinayaa xagee su'aasha ku soo baxaysa xagee ku nooshahay Muqdisho ayaa leedahay Muqdisho marka tiraado next hadaan iraado wuxuu geynayaa su'aasha ahayd xaafadeen kamid ahayn xaafadaha Muqdisho kadib waxaan doonayaa مثلا xaafada calaamada ayaan doortay مثلا waana sax su'aasha saxda ah wuxuu geynayaa waxa tahay Muqdishaawi dhaba kaba soo noqo waxaan dooranaa Hargeysa dooranaa bal hada marka Hargeysa doorano waxaan dooranaa hada مثلا jungle oo xaafad ku taal Hargeysa qofka khaldan
hadduu doorto waxaa wuxuu leeyahay magaalada kala baranayo marka waxaad dareemi kartaa featurekaas iyo faa'iidada uu leeyahay ah qofka su-aasha iyo qaabka uga jawaabay inaad meelo kale u dirto waxaan rajeynayaa inaad fahanteen logical branchingka iyo aslan sida loo isticmaalaba featurekeena saddexaad ama qodobka saddexaad ee kaga hadlayo mawduucan waa qodobka loo yaqaano form embedding waxaa laga wadaa formka sida caadiga ah waxaa la sameeyaa waxaa lagu share gareeyaa email ayaa ku diri kartaa waxaa ku diri kartaa mathalan linkiis intaa qaata social media dhigi kartaa qaabkaas waa qaab laakiin waxaa jira qaab kale oo ka professionalsan haddii aad leedahay website waxaad samayn kartaa google-ka wuxuu ku siinayaa sida uu linkiga kuu siinaya ayuu linki kale oo formaat gaar ah leh ayuu ku siinaya linkigaas ayaa qaadaysaa waxaa gelinaysaa website-kaaga dashboard-kaaga galaysaa kadibna waxaa gelinaysaa meesha aad u rabto pageka mathalan pageka dadka shaqada xareysanay oo kale pageka ayaad macluumaadka rabto ku diyaarinaysaa formkii baa soo diyaarinaysaa kadibna pageka ayaad dashboard-ka website-ka intaa gasho ayaad koodka xagga dhigaysaa sidaas ayuu kugu soo baxayaan haddaba aan eegno sidee loo sameeyaa marka aan sidan u sameynay formkaaga uu ku diyaarsan yahay qaybta send ayaa tagaysaa send markaad tagto xaggan wuxuu ku leeyahay send via email linki inaad sheegaysma rabtaa qaybta saddexaad ayaan teginaa ee koodka wuxuu ku leeyahay embed html-kaas ayaan soo koobi garaysanaa intaana soo koobi karaynin waxaa samayn kartaa xagga waxaa ka bedeli kartaa ballaca iyo dherarka aad rabto in ay ku muuqato hadhow meesha aad geynayso haddii aad inaad size-ka yaraysa rabto waa yaranaysaa haddii aad caadi ay kula tahayna sideeda ku daynaysaa waxaan leenaha copy hadda ma galayo website laakiin waxaan kugu tusayaa mathalan mowqic caadi ah oo koodka lagu edit gareeyo mathalan oo kale waxaan gelinaynaa xaggan html code editor website-kan html codeka ayaa lagu hagaajin karaa xaggan ayaan ku koobiyeynaa mathalan koodkii aan soo qaadanay koodkii markaa xagga ku koobi gareyno adiga haddii aad website leedahayna dashboardka ayaa ku koobiyeynaysaa intaad tagto ayaad pageka rabta geynaysaa waxaa arkaysaa in uu formkii iyo sidii aan u samaynayba uu noo keenay waxaa arkaysaa xataa in aan dooro karno somalit sidaas ayaa loo sameeyaa waxaan rajeynayaa saddexdan feature ee xaggan ku sharaxnay feature aad u muhiima aadna ku anfici doona inay yihiin haddii aad ka faa'iidaysto muuqaalkan fadlan la wadaaga asxaabtaada inta isleeda wadananayaan intaan muuqaalkan lamid ah aan soo arki doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu